xukuumadda Somaliland iyo dawladda Denmark waxay isla qaateen in la kordhiyo mashaariicda horumarineed ee ku jira sanduuqa loo yaqaan Somaliland Development Fund ama sanduuqa horumarinta Somaliland waxaana sidaas lagu sheegay kulan ay maanta xarunta madaxtooyada ku yeesheen madaxweyne Zealand iyo wasiirka ganacsiga iyo horumarinta Denmark Morgan Jensen oo shalay isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ay safar ku yimaadeen magaalada Hargeysa. wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yoonis ayaa sharaxay qaabka ay dawladda Denmark u kordhisay mashaariicda ku jira sanduuqa horumarinta Somaliland. dawladda Denmark ay tahay dawladaha aad iyo aad isugu dhownahay, dawlad cilaaqaad dheer inaga dhaxayso, dawlad aad bixinoo tarta sida ula socotaana sanduuqan la yiraahdo Somaliland Development Fund-ka qayb weyn ka bixisa oo ilaa 22 milyan marka maanta waxaanu halkan isugu nimid inaan ka wada hadalno sidii mashaariicda loo sii kordhin lahaa sidoo wadanka warki lahaa oo markii ugu horeysay ministerku aad buu noogala hadlay waxyaabo fara badan wuxuu soo maray suuqa wuxuu tagay meesha xoolaha lagu iibiyo meelo badan oo soo marayaa waxaanu ku dadaalay inaan u sharaxno nabadgelyada iyo xasiloonida wadanka taala waxaanu aad iyo aad mar labaad ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyo delegationkiisa safarkooda ku yimaadeen Somaliland oo aad iyo aad ugu faraxsanahay. wasiirka ganacsiga iyo horumarinta Denmark Mr Jensen waxa uu sheegay in madaxweynaha Somaliland ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin inay Somaliland kala shaqeynayaan qabsoomida doorashooyinka lagu wado inay qabsoomaan sanadka soo socda iyo ilaalinta madaxbannaanida saxaafadda. That you have freedom of expression and freedom of journalists which is even more important as Somaliland is going to election in 2016, where we also have discussed the preparation for 2015. Where we also have discussed the preparation for these elections, where the voters' registry is of course important to have in place. dawladda Denmark ayaa ka mid ah wadamada Somaliland ka taageeray dhinacyada horumarinta doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda. Khalid Xabsi, Kalsan TV, Hargeysa.